السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا شرفتا وناقا قرامدا إيا حرمدا مدنات بانينين سلامينا واختياد وناكسان ينرشي عن بانينين رجينينا يا كسو دوادا كنال كينان عافيماتكا يدريالك عافيماتكا نولوشا مقالكا وحينو كسو قادنينا نولي سو ويرارا إسلامار كان دولكا وقرهدا أو تشيفيا وقفka jira iyo xanuun iyo dhibaato aad u ballaaran ku sababa dadka ku dhaca ee ku dhex jira ma aha dadka iyagu joojiyay waa dadka ku dhex jira ficilka aadka u foosho xun aynu in badan ka hadalnaynu tilmaamnay inay dhaqan ahaan iyo diinteenu ay aad u xarintay dhaqankana ku habboonay caafimaadka qofkana baabiye siigada arrintaasi ayaa waxa jira haddaba dadka iyagu ficilka ku jira waxa ay u nugul yihiin ama waxa ay khatar iyo halis ugu jiraan ayaynu muuqaalkan ku soo qaadanayna arrintaas oo dabcan u baahan xilli kasta in laga digo isla markaana ah qofku dhibaato culus oo naftiisa iyo caafimaadkiisa ku dhacaysa oo isagu isku geysanayo loona baahan yahay markasta inaynu ka baraarujino walaalaheen laakiin bulshada inta badan sharafta mudan aynu ka dhalanay dad inta badan arrimaha aad ugu sifooba maaha laakiin dadka aan diin lahayn dhaqan lahayn akhlaaqad wanaagsan lahayn baa arrintaa u badan si kastaba ha noqotee cidda ku dhacday ee ku jirta ficilkan siigada sameeya waxay halis ugu jiraan noolayaal khatara oo dhibaato badan oo loo yaqaano an opportunistic pathogen waa noole ka faa'iideysta fursadda qofku markay hoos u dhacdo marka qofka difaaciisa iyo awoodiisa marka ay hoos u dhacdo iyo nudayaasha difaaca jirkeenu marka ay daciifaan ama ay hoos u dhacaan bay soo weeraraan waxa ugu daran ama ugu weyn bacteria la yiraahdo Mycobacterium tuberculosis TB oo sababta xanuunka TB-ga la yiraahdo halista ee dilaaga ayaa waxay eegataa janis maalinta difaaca hoos u dhaco ee ay markaa ficilka aadka u foosho xuni ku baabiiyo ee aad dhaawac jirkaagii u nuglaado difaacaagii u nuglaado ee wixiiba ay baabaan ayaad waxaad khatar ugu jirtaa bakteeriyada aynu tilmaamnay iyo bakteeriyooyin kale iyaguna ku jira ama kamida kuwa loo yaqaan opportunistic pathogen waa noolaha ka faa'iideysta inay marka qofka difaaciisa iyo awoodiisa iyo caafimaadkiisu hoos u dhaco ayay soo weeraraan kadib xanuuno waaweyn bay ku abuuraan qofka sidaas ilaa ay kaga taqalusayaan ama qofka ay dhulka ugu ridayaan oo ay jiifinayaan kama tagayaan waxaana u saamaxay difaaca baabay ee hoos u dhacay haddaba siigadu waxay sababtaa difaaca qofka inay hoos u rido in immunity-gii jirka iyo awooddu ay yaraato kadibna waxaa dhacday waxayna soo weerara noolayaasha ilma qabatinka ee bakteeriyooyinka kala duwan leh ee fayraska leh ee fangayga leh ee markaa xataa parasite haddii uu ku cuno oo xataa noolaha inta badan isagu dabadda ka iman kara haddii uu qofka markaa cuno ayaa waxa uu awoodiisii uu iskaga difaaci lahaa noolaha dabadda ka qaniinay ee sida kaneecada oo kale awood baa jirkeena marka waxyaabaha sunta ay nagu sii daayaan jirkeena ayaa la dagaalama laakiin marka difaaciisu liito ee uu baabaay ee ficilada aadka u foosho xuni ay baabiisay waxa ku dhaca inuu iska difaaci kari waayo dabeetana qofkii uu qandho dareemo oo uu xanuun dareemo qofka inta badan ficilkan ku sifooba ee ku jira waxa ka adag xataa fayraska hargabka sababa ayaa ka adag oo xilli kasta waa qof hargabsan oo cabursan oo qufacaya waxa kale oo lagu arkaa in markasta awoodiisa xanuunadu ay ka bixi waayaan oo daalku ka bixi waayo oo sariiryaal uu noqdo oo bukaan socod uu noqdo oo dhibtiisu ay badato ayaa la arkaa qof kastoo hargab qaba ama hargabka u nugul walow aynaan la odhan karin fadlan fariinta caafimaad waa inaynaan qalas fahmin qofka hargab waa ku dhici karaa isagoo aan ficilkan samayn ama xanuuno kale way ku dhici karaan isagoo aan ficilkan samayn laakiin dadkaas maadaama immunity-gooda ayaa hoos u dhaca immune systemka ama intensity-ga ay leeyahay immunity-ga iyo qarada iyo xoogga uu leeyahay difaacu
ayaa ay baabiisaa ficilka aadka u foosha xun. kadib waxa uu nuglaadaa noolaha fursadaha ka faa'iideysta ee loo yaqaano opportunistic pathogen ee fursadaha ilaashada ee qofka nuglaanshihiisa ilaashada ee daciifka qofka ilaashada ayay ka faa'iideystaan. laakiin qofku wuu xanuunsan karaa, xanuuno kala duwan baa ku dhici kara. xanuunka waa u noolnahay, dad ibni aadan aynu nahay, waa la xanuunsanayaa oo qofku siyaabo badan buu xanuunsan karaa. laakiin xasuusnow arrintaasu waa arrinta ugu halista badan ee difaaca qofka nuglaysa, baabiisa, daciifisa, isla markaa u saamaxda inay dhulka la dhacaan. xataa noole aad u yar oo marka hore uu iska difaacayay oo uu ka adkaa oo iska daa inuu xanuunsado oo aan agtiisa soo mari jirin ayaa markay dhibaatadaasu ku dhacdo dhulka ugu rida oo markaa beerka ka garaaca oo dhibtaa ku sameeya. saa laajigeed dhalinyartu inay aad uga taxadaraan oo ay dhug weyn u yeeshaan ayaynu cod dheer ugu tilmaamayna. dhibaatooyinkaas xanuunada iyo nuglaanshahana ay uga fogaadaan, iimaanka iyo yaqiinta wanaagsanna qalbigooda aanu uga bixin. haddii markaas qofka shabaabkaahi uu arrimahaas uu dareemo inuu guur xalaala raadiyo oo sidaa la sameeyo, waalidiinta iyo dadka muxtarimka ee caqliga leh iyo dadka culimada iyo madaxduna ay ilaaliyaan dhalinyarta qiyamkooda iyo sharaftooda iyo caafimaadkooda oo guurka ay u fudaydiyaan, wadooyinka wanaagsan ay u fudaydiyaan, si markaa aanay khatarahan halistaahi aanay ugu badan bulshadeenna iyo ubaxaynu jecel lahay iyo dhalinyarta aynu jecel lahay quruxdooda inaanay arrintani aanay u soo gaadhin. intaas ayaynu ku soo ururinaynaa. la sii wadaago u sii sheergareeya bulshada aynu jecel nahay kanaalkeena inay qayb ka noqdaan. waxaan idiin rajaynaynaa nolol wanaagsan, caafimaad taama iyo mustaqbal ifaya. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.